السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونظام السلامي دمان ميشاد الدنيا كتشوكتان عشر كان وحنا كشرحينا for loop وحي هي يعني سيف عنو كشرح دونا بركا for loop definition كيس هدين فهنو the for loop in Python is used to iterate over sequence iterate وحويا يعني loop through markaad haysato collection sequence ama collection ka waxaynu soo baranay list baynu soo baranay tuple iyo dictionary iyo qaybo kale ayaa inoo soo socda markaad haysato list ama collection markaad haysato ayaad markaa ku wareegi kartaa ood mid haddaad doonto u printer garayn kartaa or another iterable object ama object kaloo markaa collection ah iterating over a sequence is called traversal baa markaad ku wareegayso iteration markaad samaynayso ama aad collectionkii ama sequencegii aad ku mid aad soo qaadanayso waxaa la dhahaa traversal ayaa la dhahaa okay loopku markaa waxaad ka arkaysaan for waanaad ku bilowdaa kabacdi variableka waa loop variable baa la dhahaa waa caddood bixin kartaa laakiin waxaa fiican sequencegaad ku wareegayso magaciisa inaad u bixiso matalan waxaanu haysanaa names magacyeen rabnaa inaanu mid u printer garayno waxaad oranaysaa markaa for name in names maadaama names aan ku wareegayno waxaad fiican inaad variablekaad ka dhigto name books haddaynu ku wareegayno waxaad oranaysaa for book in books for car in cars yaa markaa waxaa fiican sequencegaad ku wareegayso isagoo inta badan sequencega waxaa laga dhigaa plural markaa isagana waxaad ka dhigaysaa singular markaa for name in names oo kalead oranaysaa kabacdi intaas waa muhiim listigii aad ku wareegaysay ama list kaliya ma aha waxyaabo badan baynu wax walbo ah sequence ayaynu ku wareegi karnaa hadduu doono xataa string hadduu yahay string oo kale waa sequence matalan ayaynu ku wareegi karnaa marka sequencega halkaa gelinaysaa kabacdi indentationkaas waa muhiim inuu bodygii ku dhex jiraa markaa for loopka markaa val is a temporary variable waa variable temporary ah that holds one of the items in the list marka itemskii magacyada ayuu mid kugu soo qaadaya valkaas variablekaas bodygana marka waxa weeyaan waa for each string ayuu la mid yahay kale marka adoo yidhi mar walba mid soo qaado markaa execute kare codeka marka codekii aad execute garaynaysay ayaad bodyga gelinaysaa iminkana tusaaleyn aynu arkaynaa halkan waxaynu haysanaa list of names magacyadaasaan rabaa inaan mid walba salaamo aan dhaho iska waran marka waxaynu oranaynaa for name in names marka waa listigaan ku wareegay halkan waxaan idhi name baan idhi marka haddaan doono x waan oran karaa laakiinse waxaa fiican inaynu name u bixino maadaama list of names aynu looping ku samaynayno kabacdi colonkaas inta badan ardayda halkaas way iloobaan halkaa ha iloobina halkaa markaad colonkaas ama enter dhahdo automatically isagaa markaa indentationkii ku samaynaya oo hadda bodygii baynu ku dhex jirnaa waxaan oranaynaa print iska waran kabacdi namekii intaas markaa magac walba mar intuu inoo soo qaado ayuu markaa salaamayaa haddaynu hadda save garayno run dhahno iska waran maxamed iska waran deeqa iska waran maryam iska waran cali mid ayuu markaa u salaamaya okay marka waxaanu kaloo samayn karnaa haddaynu rabno inaynu magacyadii ardayda inaynu weydiino magacyadii halkan inagu aynu magacyada ka gelinay waxaynu oran karnaa waxaynu weydiin karnaa userka inuu magacyo geliyo marka listiga waxaan ka dhigayaa matalan hadda empty baan ka dhigayaa listi maran kabacdi waxaan oranayaa input imisa magac ayaad gelinaysaa baynu idhi matalan marka magacyadii integer baan u bedelanayaa waxaan rabaa inta magac inaan ogaado int baan oranaynaa int okay kabacdi markaa kan salaamid oo inoo dambayn doonaa waxaan samaynaynaa for loop kale waxaan oranaynaa for I in range waanigi soo baranay range wuxuu kusinaya list of names marka list of numbers baa hadda siinaya count haddaan geliyo marka hadduu qofku 3 geliyo 3 number ayuu siinaya numberadaas marka 3 mar ayaan markaa ku wareegi karnaa waxaan oranaynaa
for I in range magacii baan weydiinaynaa qofka name is input Soomaaliya aynu ka dhigno geli magaca waxaan rabnaa magaca inaan dhahno magaca koobaad ka labaad ka saddexaad marka waxaan odhanaynaa idii baan isticmaalaynaa waayo halka waxaynu nidhi rangegaas wuxuu inoo sameynayaa list of numbers nambaradiiba marmar intaan soo qaado markaa magaca markuu geliyo qofka ayaynu waxaan odhanaynaa marka listigeenii madhnaa ee halkan emptyga ahaa ayaynu hadda marka odhanaynaa names dot append magacii uu qofku geliyey name okay marka intaa markaynu samayno oo aan dhamayno ayaynu markaa waxaan odhanaynaa for name in names magacyada markaa mid u printer garaynaynaa okay aynu aragno tusaalahanna okay haddaan ran garayo iminka markaa weydiinaya imsa magacayaan gelinayaa 3 baan ku idhi okay halkan khalad ayaa dhacay marka khaladka waan daayay si aad u aragtaan kabacdi baynu saxaynaa wuxuu yidhi input commandka waxaad siisay 2 arguments laakiinse 1 argument unbaa la ogol yahay marka halkan comma iyo aydaas u diidan yahay commagaas waxaynu u bedelaynaa halkan intaynu space gelino ayaynu markaa commagi waxaan u bedelaynaa plus waxaynu ka dhigaynaa markaa concatenation laakiinse maadaama aydu uu yahay integer waa inaynu u bedelnaa string waa inaynu dhahnaa str halkaas markaa waxaa ka soo baxaya geli magaca 0 magaca 2 magaca 3 saasoo kale ayuu soo baxayaa okay haddaynu test garaynaynaa marka cls run haddaynu dhahno imsa magaca 3 magac baan rabaa inaan geliyo magacii marka waxaad ogaataan listigu mar walba wuxuu ka bilaabanayaa 0 marka halkan countka range-ga 0 ilaa maadaama aynu nidhi 3 wuxuu ka bilaabanayaa 0 1 2 buu ina siinaya laakiin hadhowtu waynu bedeli karnaa haddaynu rabno waxaynu odhanaynaa markaa magaca koobaad axmed ka labaad cali ka saddexaad kabacdi listiga ayuu markaa saddexdooda ayuu salaamay iska waran axmed iska waran cali iska waran maxamed wax yar ayaynu markaa halkan ka improve garayn karnaa ama hagaajin karnaa marka ugu horeysa stringiga waxaynu odhanaynaa +1 soo hadhowto 1 uga bilowdo kabacdi waxaynu usii dhexaysiinaynaa space yar isag iyo magaca markaan leenahay plus colon iyo space soo magaca markaa iyo numberkii ayna isugu dhegin okay let's run again waxaan idhi 3 magac baan rabaa okay hadda space baa u dhexeeya soo maaragtaan colonkii iyo 1kii iyo colonkii kabacdi magacii iyo colonkii space baa u dhexeeya hadaynu dhahano 3 magac kabacdi iska waran deeqa iska waran maryam iska waran sahra marka list empty aad ka bilaabi kartaa kabacdina waad waxaad ku dari kartaa listiga inta badan waxaa loo isticmaalaa oo kale matala shopping cartiga oo kale amazon ka haddaad tagtaan marka hore empty list ayuu ka bilaabanayaa horka muxuu odhanayaa productskii oo kale products kabacdi wuxuu ku odhanayaa adaa markaad products aad ku darto wuxuu odhanayaa markaa product dot append kabacdi intii product aad ku darta ayuu markaa ku darayaa hadhowta ayaad iibsanaysaa productigii marka sidaan idiin sheegay string waa sequence haddaynu dhahano for letter in name print letter waxaad arkaysaan inuu markaa letterski 1 by 1 u printer garaynayo marka stringigu waa isna waa sequence sidaa loola socdo marmar waxaa laga yaabaa inaad u baahato indexkii iyo valuegii labadiiba inaad soo qaadato marka waxaanu isticmaalaynaa function la dhaho enumerate okay functionkaasaynu arkaynaa haddaan dhahno for iminka haddaan dhaho keliya for name in meeshii names aan ka odhanaynay enumerate names haddaynu gelino oon dhaho matalan print name waxaynu arkaynaa inaanu magacii inoo soo qaadaynin marka aynu aragno kabacdi baynu hab kale ina tusi doonaa sorry halkan waxaan idhi name wuxuu ahaa la dhaho names for name in names collectionkii baynu markaa ku wareegaynaa for name in names print name haddaynu dhahno run again
حدين soo baxay waxa la dhaho tuple oo aynu baran doono soo socda tupleku oo ka kooban laba item index numberkii iyo valuegii maadaama aynu tuple haysano waxaynu ku samayn karnaa unpacking sidii listig oo kale waxaan oran karaa halkan for index comma name marka indexka wuxuu soo qaadanaya indexkii namekiina wixii inoo soo qaadanaya waxaan oranaynaa markaa hadaynu formattingka isticmaalno f index bacdi colon haddana namekii baan soo qaadanaynaa okay let's run waxaad arkaysaa marka indexkii iyo valuegii labadaba aynu soo qaadanay marmar baad u baahanaysaa marka inaad indexkaana soo qaadato habkaasaa loo soo qaadanaya sidaynu hore sharxanayna range markaynu rabno inaan number printer garayno waxaan isticmaali karnaa range markaan oran karnaa for I in range matalan 10 number haddaan rabo inaan printer gareeyo 10 print I marka 10 number ayuu printer garaynayaa sidaan hore usoo aragnayna haddaynu rabno waxaan oran karnaa ka bilow from 5 to 15 marka 5 ayuu ka bilaabayaa ilaa 15 numberadaas print gareynaya waxaan oran karnaa haddaynu doonana mar walba waxaad ka boodaa 2 numbers ama step 2 numbers haddaynu ran dhahno marka wuxuu ka bilaabayaa 5 7 9 11 saas u soconaya marka rangegaasaad isticmaalaysa haddaad rabto inaad nambaro printer garaysato for loop wuxuu kaloo ku ogolaanayaa inaad dhowr jeer aad qofka siiso chance uu geliyo marka macluumaad مثلا waxaan rabnaa qofkeena inuu weydiino passwordkiisa 3 times inaan 3 opportunities siino ama 3 ama 3 fursadood marka for loop oo kale loo isticmaali karaa waxaan oranaynaa for I in range 3 opportunities aynu siinaynaa 3 fursadood waxaan oranaynaa w intaasaynu bixinaynaa input password 3 jeer ayaynu weydiinaynaa haddii uu markaa hadhowtaynu baran doonaa if conditionska laakiinse waxaan oran karnaa matalan if passwordkii hore xaggan usoo qoranay ama ku qofku geliyo waxaan u bixinay haddaynu doono user password baan oran karnaa if user password is equal to if condition kan way soo socotaa waynu baran doonaa laakiinse iminkaaynu iska hadduu la mid yahay passwordkii halkaa dusha aynu ku sheegnay waxaynu oran karnaa markaa print else baynu oran karnaa haddii kale print marka if conditionkan iyo comparison operatorkan iyo waxyaabahaas oo dhan way soo socotaa waynu baran doonaa laakiin saddex waxaynu baranaynaa keliya fahmaynaa inaad 3 for loopku ku ogolaanayo inaad dhowr mar aad qofku weydiin karto waxaad u baahan tahay marka haddaynu hadda rangarayno oon geliyo password khalada haddaan iska geliyo wax kale waxaan odhanayaa error haddaan sax geliyo laakiinse successful marka wuxuu ku ogolaanayaa for loopki inaad dhowr jeer isku xigta aad qofka wax weydiin karto okay challenge-ga marka aan rabo inaad samaysaan intaad videoga yara joojisaan waxa weeye challenge-gan haddan marka list baynu haysanaa halkan listiga waxaa ku jira expensegaas ayaan markaa totalkii isku daraynaa kabacdi waxaan beregaraynaa you spent total on lunch this week matalan qofa raba inuu expensegiisii lunchiga uu ku bixin jiray inuu xisaabiyo marka listigaas ayaynu haysanaa laakiin waxaanu rabnaa inuu bedelno for loop qofkii inaynu siino markaa fursad isagu uu gelin karo inta expense uu rabo marka waxaa la rabaa inaad samaysato list empty or expenses kabacdi qofka aad weydiiso how many expenses do you want to enter kabacdi markuu qofkii expenseskii uu ku dhaho matalan 7 ama 5 inaad for loopki ku wareegto 5 mar ood weydiiso geli expenseskii markaa uu geliyo
qofka markuu geliyo markaa ayaad listigii ku ridaysaa listigii marka ku riddo hadhowta ayaad markaa samkii isku daraysaa oo aad print garaynaysaa waxaan rabnaa we want the user to be able to enter their own expenses marka videoga yara joojiya kabacdina solutionka sameeya okay solutionkii baynu hadda samaynaynaa markaa okay marka waxaan marka hore weydiinaynaa samaysanaynaa list empty expenseska inoo haya kabacdi sidaynu hore usoo aragnay waxaan qofka weydiinaynaa count baynu bixin karnaa input enter total expenses markaa hayloobin inaad integer u bedeshaan mar walba sidaynu nidhi input wuxuu soo celiyaa string marka inaynu u bedelnaa integer kabacdi waxaan leenahay markaa for I in range count haddaad doonto count waad bixin kartaa haddaad doonto total expenses waa variable aday kugu xidhan tahay waxaan leenahay marka expense baan isticmaalnay expenses waa listigeennii expense is equal to input enter expensigu marka waxaa laga yaabaa inuu decimal point wato matalan qofkii inuu £2.50 ama $2.50 uu ku cunay marka inaynu bedelnaa float si aan ugu ogolaano marka inuu gelin karo number wata decimal point kabacdi baynu marka expenseskii oo listiga ahaa dot append xaranaynaa expense listigii inoo collect garaynayaa halkan waxaan idinka tusayaa listiga horta marka hore si aad u aragtaan print expenses halkan waxaynu odhanaa print expenses si aynu listiga u aragno kabacdi waxaynu isku daraynaa totalkii marka hadaynu dhahno total hadaynu ka dhigno underscore total expenses is equal to sum oon horeen usoo dhiganay isku wada daraya list haddaad haysato of numbers isugu kaa daraya totalkii ku siinaya kabacdi waxaan odhanaynaa markaa print ku dhigo total expense r haddaynu doonno waxaynu oran kalagina halkan expenses okay marka let's run total expenses waxaan idhi matalan 5 si aanoo noogu badan listigu ka ugu horeeya 10.5 40 8 9 kabacdi listiga waa kaa inoo printgareeyey your total expenses are 32.9 halkan dhowr waxaynu ka saxaynaa improvement ku samaynaynaa ta ugu horeysa waxa weeyaan numberka markaan qoro magaca expenseska si aanu space ugu dhexeeyo mar walba waxaa fiican colon iyo spacekaas inaad geliso inta kale waa okay haddaynu doonno halkan sidan ood u isticmaali kartaa haddaad doontana sidii aynu hore usoo barannay formattingkii f intaad halkaa geliso ayaynu markaa expenseska halkan aan gelin intaan soo qaadano aynu waxaynu ka dhigaynaa marka calibracekii dhex gelinaynaa labadaba waa sax ka doontaad isticmaali kartaa total expenses hadaynu dhahno 3 2.5 3.6 8 intaasoo expense ayaad gashay totalkiina waa 14.1 halkaas aynu ku dhammaynaynaa casharkan waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu